asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira dhaktar abakar oo ka mid ah samafalayaasha reer somalilan, islamarkaana wax badan ka qabtay somalilan, gaar ahaan cisbitaalka magaalada ceerigaabo. doctoorku hadda ayuu khadka telefoonka si toosa ugu jira. doctor, ugu horeyn soo dhawow, bal waxaad ka warqabto xaalada guud ee dalka, kusoo dhawow. aad baan kuu salaamaya wariye cabdiraxmaan british adiga iyo bahda sahan t v. guud ahaan wadanku ugu fiicnaa waqtigii aan ka imimka 2 bilood baan ka sokeeyey. dhinac nabadgelyo iyo dhinac siyaasadeedba runtii waa deganaa. ilaahina subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu sidaas ugu wado. nabadgelyaduna waa furaha maxay ahayd dee horumarka. haddii aanan dalka ama dadku haysan wax nabadgelye ah, horumar ma jirayo. taasaa waxay markaa keenaysaa in ay markaa dadku wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan, nolol maalmoodkoodana wixii ay la soo bixi karaan ay la soo baxaan. ganacsigana runtii waxa weeyaan ganacsigu waa jiray. duruufuhu dee way iska jiraan oo qof walba duruufaha dhaqaale haysanaya markaad ka timaado, haddana dadka ganacsatada ah iyo dadka maxay tahay nolol maalmeedkooda xoogsanayaaba runtii waxa weeyaan way wanaagsanaayeen. kolley mararka qaarkoodna dee dadku isku wada mustawa maaha. dad waxaa jira nolol wanaagsan iskaga nool, dad wax loo soo diro bannaanada iyo wax looga soo diraa jira, dad duruuftooda dhaqaaleed dee la kaca kufayaa jira, dad iska qadama dhergaana baa jira. marka nololaha aankaasun dee weligeed ma arki jirnay oo waddan afrikaan oo waliba dee faqiirana aynu nahay oo intaasiba way jiraan. laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar haddii nabadgelyadu ay taam tahay, taasi waxa weeyaan waxyaalaha furaha waa horumarka. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu taana inoo sii wanaajiyo, inoo sii xoojiyo, dadkuna runtii ay ku fara adeegaan oo ay ilaashadaan nabadgelyadooda, waayo taasaa ay ku jirtaa wanaagoodu iyo horumarkoodu. xagga gobolka sanaagna runtii dekadii maydh waxaan filayaa iyadoo socotaba ay ugu dambeysay. taasina wax weyn bay ka bedeli doontaa guud ahaan gobolka sanaag, dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa. wadadii ceergaabo ilaa burcona runtii waxa weeyaan un dee iska gabagabay ku dhoweyd. taasina haddii ay dhammaystiranto waxaan filayaa iyadana dadku inay markaasi dhinaca gobolka sanaag oo runtii aada muddo gobol ballaadhan oo wax soo saar oo khayraad badeed iyo khayraad beriba ilaahay ku manaystay, in ay dadku markaa xaggaas u eegi doonaan oo ay dadku isu furnaan doonaan oo caqabadii wadda xumaanta ay ka bixi doonaan. haddii dekedda kalluumaysiga loogu darana runtii waxa weeyaan ay fidhigarayn doonto meelo fara badan, shaqo abuurna laga heli doono. gobolka sanaagna uu noqon doono gobol runtii wax soo saar ama yeesha ama ay dadku dib ugu soo noqdaan oo ay wax ka qabsadaan. taa guud ahaan dalkuna waxa weeyaan sidaasaa horumarku meel walba uga soconayay, dadkuna ugu dadaalayeen iyadoo sidaan kuu sheegay ay nabadgelyadu fura u tahay. doctore, waxaad ka mid tahay samafalayaasha reer somalilan, bal waxaad ka warbixisaa halkay marayaan arrimihii samafalka ee arrimaha xagga samafalka markaan u imaado runtii waqti badan kuma jirin, laakiin waxay igu dhalisay markii aan gobolka sanaag tegey ee aan halkaasi ka shaqaynayey muddo 2 sana hadda, oo aan arkay baahida jirta. marka laga yimaado baahiyaha asaasiga ee wasaaradda caafimaadka cusbitaalka, maadaama cusbitaal dowladeed yahay, ay ka qabato xagga shaqaalaha iyo maxay ahayd daweynta iyo dee agabka kaleba. waxaa kolleyba jiraya baahiyo kale oo markaa loo baahan yahay in wax lagu daro, bulshada deegaanka laftigeeduna qayb ka noqoto. taasaa markaa waxay gu dhalisay waxyaalo fara badan oo runtii maskaxdayda ku jiray inaan markaa usoo bandhigo dadka communitiga, maadaama ay ka mid yihiin communitigu bulshada loo adeegayo. taasina waxay keentay inay dadku ajiibaan. runtii hadday noqoto dib u habeyn cusbitaalka, xagga maramarka dhismihiisa guud dayactir lagu sameeyo, iyo maxay ahayd quudinta iyo fiidhinka oo runtii dadka xanuunsanaya qaarkood aanay haysan ehel wax badan maxay ahayd dee cusbitaalka ugu keeni kara. aan markaasi gartay in xagga fiidhinkana bal gobolka iyo waxaan leeyahay gobolka dadka degan iyo dadka muxsiniinta qayb ay ka noqdaan. taasi waxay markaa keentay in runtii aanu feedback wanaagsan aanu ka helno oo aanu aragno in ma garanaysaa ay dadku u soo jeedaan. samafalkaasna meel fiican buu runtii noo marayaa. intaan halkan joogaan fasaxa iminka ku joogay ee aan imid dalkan ingiriiska, dadkii aan la kulmay waan uga warramay cusbitaalka iyo guud ahaan iyo xaaladda caafimaad ee gobolka, wixii ay asaasiyaadka wasaaradda caafimaadka ku qabato, waxyaalaha baahiyahay jira, sidii baahiyahaasina loo sii dabooli lahaa, dhammaystirna wixii qabyaa loogu samayn lahaa. samafalkaasina runtii meel wanaagsan buu noo maraya, dadkuna runtii inay wax ka qabtaan oo ay la tacadufaan oo ay wixii ay kari karayaan ku biiriyaan
maxay ahayd dadaalka xagga dowladdu ama wasaaradda caafimaadka wado iyaguna ay qayb ka noqdaan ayay runtii aanu isla afkaranay insha allahu tacaalana waxaan filaynaa inay waxaasoo dhammina midho dhalaan cusbitaalkuna uu noqdo cusbitaal runtii gobolka sanaag guud ahaan yacni ka tilmaaman arrintaasna waa arrin runtii meel wanaagsan iyada arrintaas samafalkuna noo maraysa magaalada ceerigaabo waxaa dayactir ku samaysay dhakhtarka TB-da, bal dhakhtarkaasi iyo waxyaabaha kugu kalifay inaad dayactirkaasi samayso maxaa ka mid ah? magaalada ceergaabo runtii waa run dayactir baanu cusbitaalka sidaan horeba ugu soo sheegay ku sameynay markii ugu horreysaan tegey waxaan arkay inuu cusbitaalku dayactir u baahan yahay qaybo badan hadday noqon lahayd xagga marmarka oo sibidh baa markaa cusbitaalku uu lahaa taangiga biyaha oo aan 10 foosto qaadayay oo markii dambe aanu 20 foosto oo taangi aan usoo iibinay biyuhu markii hore ka go-naayo booyada loogu dhaaminayay oo aan markii dambena wasaaradda biyaha aanu la kaashanay inay beebabkeeda usoo daayaan taasoo iminka biyuhu ay mar walba u soconayaan oo aanay ka go-in xagga raashinta iyo quudinta inaanu markaasi aanu door weyn ka ciyaaranay oo aanu qayb communitiga bulshadu sidii ay u quudin lahaayeen aanu magaranaysaa isku afkaranay waqtiyada qaarkoodna rabadaanta oo kale loo sameeyo cunto ururin oo markaasi loo ururiyo cuntada sanadkaasi ku filnaanaysa dhinaca maxay hayto nadaafadda oo aanu xoojinay iyo qaybo badan oo runtii maxay hayto aanu wax ka qabanayba aad dayactirkaasi kharash baa ku baxay kharashkana waxaa ururiyey oo maxay hayto nagala qayb qaatay communitiga magaalada ceergaabo oon aad iyo aad ugu mahadnaqayno culimo iyo dad kale iyo intaba iyagoo leh iyo ganacsataba runtiina ajiibay oo aananu keligay waxba qabanin taasina waxay keentay inay markaasi howlaha dayactirka oo dhan hadday noqon lahayd rinjiyeyntii iyo nuuradayntii iyo marmaru samayntii oo qaybigeeda lafteeduna wasaaradda caafimaadku ay ku lahayd wadee la-aantiina aanan runtii waxba dhaqaajinin ay dadka communitiguna wax ku yeesheen taasina runtii noqotay inuu cusbitaalku aad iyo aad ugu soo qurux badnaanayo waxaa kaloon insha allah ku dadaalayna wasaaraddana u gudbina inay deyrka iyo xagindaabka cusbitaalka noo samayso kaana insha allah waa rajeynayna iyaduna inay noo suurta gasho intaa wixii ka dambeeya in dhiraynta lagu beero oo lagu sii adkeeyo ayaanu markaasi ku tala jirnaa markaa dayactirka iyo cusbitaalka dib u habeyntiisa iyo nadaafadiisa xoojintiisa maadaama uu yahay cudurrada faafa cusbitaal maxay tahay dadka loogu adeego inaan xakamayno cudurradaas oo dhan inaanu magaranaysaay qorshaha waxaa noogu jirta insha allah inaanu gaari helno aanu dadka outreach ugu samayno aanu meelaha laga soo qaadi karay aanu ka soo qaadno si aanu markaasi ugu fududeyno inay dadka cusbitaalka si weyn ugu xidhmaan taasi waxay runtii waxbooyin ka bedeshay dadkii aan markii hore u joogin magaalada ceergaabo dad wax siiya inay maanta cusbitaalka ka heli karaan cuntooyinkoodii iyo daaweyntoodii si bilaashana loogu wada adeegi karayo iyadoo qalabkii sawirkii iyo kii lagu qaadayay sputumka ama xaakada oo qalab casri uu yaallo kii koronaha lagu baadhayay intaba cusbitaalka noo yaalaan markaa dadka adeega aan wada fidnana waa adeeg bilaasha iyadoo markaas sidaan kuu sheegayna fiidinkii iyo cunto siintiina aanu ugu darnay cusbitaalkiina nadaafadiisii iyo hayjiintiisii kor u soo qaadnay keliyana aanu rajeynayno iminka deyrkaasi haddii lahaydno iyo gaadhigaasi inaanu helno taasina runtii waxa weye waxqabadka iminka cusbitaalka iyo halka uu marayo ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aada u dirayso bulshada reer somalilan ee ku daawan doonta amase ku dhageysan doonta? fariinta ugu dambeeya bulshada u diraya guud ahaan reer somalilan waxa weeyaan biyaasacabadada laga dhergaa dowladdu waxay qaban karayso de waxaynu wadan yar oo ordina waxaa loo baahan yahay dadku inay iyaga laftooda xil isa saaraan oo aanay mar walba dowladdu wax ka eegin laakiin iyaga laftooda xoogu ku jira communitiga laftigooda aniga khibradda aan imika markaa ka helay ceergaabo iyo cusbitaalka waxa weeye inay dadku wixii dowladdu hayso haddii wax lagu biiriyo ay noqonayso wax dham oo runtii wax weyn noqonaya marka waxaan ohan lahaa dadka iyo bulshada inay xoojiyaan wax wada qabsiga iyo howlaha samafalka waxaa howlaha samafalkuna qeyb weyn bay ka qaadataa korukaca iyo bilicda iyo wanaagga iyo tayada qeybaha markaa dadku joogaan cusbitaalka dadka reer ceergaabo ama gobolka sanaagna waa ku mahadsan yihiin aad baan ugu mahadnaqaya qeybtaa ay gala qeyb qaateen iyo maxay tahay la-aantoodna waxba maanaan qabaneyn laakiin siday noo ajiibeen siday wixii aan uga baahanaba ay nogala qeyb qaateen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan bulshada reer ceergaabo waxaanan leeyahay biyo gacmaheena lagaga dher biyo sacbadeeda lagaga dhergaa oo dhakhtarkiina qeybihiina waxbarashada meelaha danta guud ku jirto waa inaad qeyb ka noqotaan taasaa horumarka iyo wanaagga ku gaari kartaan taasaa wax ku qabsan kartaan taasaa maxay tahay waxyaalaha iyo baahiyihiina aad ku dabooli kartaan
marka waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, wax qabsada, meelaha sadaqada iyo samafalka looga baahan yahay u degdega. dee dhinaca kalena diiniyan markaad eegtana waa wax ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayo, waa wax ilaahay abaal lagaga helayo, waa wax qofka bini aadamkii hadhowto aakhiradiisa ay wax u noqonayso. shilin aad bixiso iyo $100 aad bixiso iyo wax ka yar aad bixisaba wanaag baad ku helaysaa. taasina waa dardaarankan usoo jeedinaya. aadna waa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.